qaar ka mid ah shaqaalaha ka howlgala dekada magaalada Berbera ayaa soo dhaweeyay mushaar kordhinta ay u sameysay shirkadda DP World ee gacanta ku haysta maamulka marsada Berbera waxaana ka mid ah hadaladoodii saddex jeer laabe waxaan filaynaa inay nooga sii badan doonaan sida ay ballanqaadka ay noo ballanqaadeen waana ka sii badan doonaan happy noon ku nahay قبض بوقت كده صوم كل سنة قد بنو صرامي مدحونا يوم القدس شكرا جدا السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله سلام تعافى كسي بركة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أنا قام مقعد محمد جاهر هو ورسمه سلام كان شغال حدي بيولا إمكا كنا سوري بش سد حل بلدي ونشقيني إمكا بالبورا وحن هلك قعدين يا إنه هاي شغالها رسمي جاه DP World مشاركة كواس عادي هذا وفر حسن كان قرضايش سلوا مشارسي يدو مشاركة قبل كبير إحنا كروك عاي سلام كان عين السيان وحبر الشق ونجيب ترينيا سيدو كنا إنه قبل قاعدين سيمينار هذا بدين إلا إمكا عادي هذا وفر حسن هاي وحنا وقتين وانا نرش شغالنا وانا نولد ذالنا وحي إنه قبل قاعدين بلغات كده هو فليين بلغات من نص منه وحنا أدري شيء من فلين دونان كلين أنا ما قرر يجوني ترو ميدول بروح وكل حاجة بالشركة حسيا شيء إنسان للسياسة وصاحبه هو قاعد قاعد مشارك سلو دياريه واحد كم غنى هو قاعد واحد للسياسة وكلنا هو قاعد عقد على شقتنا طبعا عيد كسر ما دخلوا كتبت DP World وأحياها إياك العيسى كلها الليسي أنا لكن فنوسها ما نرك عيد كعبان نسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidoo kale gudoomiyaha gobolka saaxil jaamac yuusuf axmed oo aan kula kulnay gudaha dekada magaalada Berbera ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan mashaariicda horumarineed ee ka wado dekada magaalada Berbera shirkadda DP World waxaana ka mid ah hadaladiisii bayska aday tahay wadooyinka maanta u heegan sidoo Soomaaliland horumarin lahayd baan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland saaka farxad gooriye noo tahay shaqaalihii inta cabanayay aan ku wareejinay DP World ee mas'uuliyadooda annako aan lahayn oo saaka iyo maalmahanba aad u faraxsan dareenkooda gaar ahaan oo mishaarkii ay ka walwalayeen maanta loo kordhiyay Abdulrashiid Sool Somali Cable TV magaalada Berbera